بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكبرنا ويديمهن كلا. What is a resume or CV and what is a job interview. Inta aanan erey bixin resume iyo CV marka hore aan fahanno ereyada micnahooda. CV waxaa laga soo gaabiyaa curriculum vitae waana erey Latin ah una taagan course of life ama hab nololeed. halka ereyga kale oo ah resume oo ah Faransiis waxa uu taagan yahay summary oo ah soo koobid. haddaan fahanay ereyada iyo meesha ay ka imaadeen markan aan erey bixino resume ama CV waa dukumenti rasmi ah oo qeexaya codsadaha shaqada waxaana loo abuuraa si uu u qeexo khibradda shahaadooyinka iyo heerka waxbarashada uu ka joogo codsadaha shaqada. walxahaas oo dhanna waxa uu arkaa codsadaha shaqada inay awood u siinayaan inuu ka soo bixi karo shaqadan ka bannaan shirkadda ama hay-adda. markana aan aragno sidee loo kala saaraa resume iyo CV. haddaan ku horumarno CV waxaan dhihi karnaa waa dukumenti dheer oo ka koobnaan kara warqado badan badina waxaa loo isticmaalaa marka uu qofka shaqo ka doonayo macaahidda hay-adaha cilmi baarista ama jaamacadaha. dukumentigan oo bixiya sawir buuxa ama dhammaystiran qofka danaynaya inuu buuxiyo booskan ka bannaan shirkadda. xogta ku qoran waxaa ka mid ah shahaadooyinka heerka waxbarashada khibradda iyo xirfadaha uu qofkan leeyahay. halka resume uu ka yahay dukumenti gaaban oo faahfaahiya khibradda iyo xirfadda uu musharaxa shaqada leeyahay middaas uu aaminsan yahay inay awood u siinayso inuu shaqada ka bannaan shirkaddan qabto. si kale haddaan u dhigno resume waa dukumenti lagu dalbado internshipka. internshipka waa tababar shaqo ee loo sameeyo ardayda khaasatan ku jirta sanadka u dambeeya ee waxbarashada. shaqadan waxa ay la xiriirtaa takhasuska ama kulliyadda uu ardayga baranayo waana qaab ardayda loogu sameeyo xirfad shaqo. jaamacadaha qaarna waa qayb ka tirsan waxbarashada ardayda oo waxaa loo qiimeeyaa internshipka sidii maadooyinka oo kale. markana aan isla fahanno qeexidda job interview ama wareysiga shaqada ka bannaan shirkadda ama hay-adda. waxaan ku qeexi karnaa waraysi ama wadahadal u dhaxeeya musharaxa shaqada danaynaya iyo wakiilka ka socda loo shaqeeyaha ama shirkadda. haddaba wadahadalkan waxaa loogu talagalay in lagu qiimeeyo haddii qofkan shaqada soo codsaday uu munaasab ku yahay inuu buuxiyo booska ka bannaan shirkadda ama hay-adda. sidoo kale waraysigan shaqo waxa uu awood u siinayaa musharaxa shaqada danaynaya inuu qiimeeyo haddii shaqadan iyo shirkaddan ay tahay mid ay wada shaqayn karaan. haddii walxaha qaar uu mugdi uga jirana waxay awood u siinaysaa inuu su'aalo ka weydiiyo qofka ka socda shirkadda shaqaalaysiinta. sidoo kale interviewga waa mid ka mid ah qaababka ugu fiican ee lagu xusho shaqaalaha loo arko inay munaasib ku yihiin shirkadda kuwaas oo loogu talagalay inay buuxiyaan booska ka bannaan shirkadda. meelaha su'aalaha laga weydiiyo marka musharaxa booska laga qaaday interviewga waxaa loo kala saaraa 3 qaybood ee hortiina ka muuqata. haddaan ku horumarno kow general traits waxaa ka mid ah in qofka la qiimeeyo haddii uu awood u leeyahay inuu xog cusub baran karo, haddii uu xirfad ama khibrad cusub samaysan karo ama uu hormari karo. sidoo kale in qofkan iyo shirkadda ay munaasib isku yihiin oo ay wada shaqayn karaan mustaqbalka. 2 waa experiential factors oo ah in laga fiiriyo in musharaxan ama shaqaalahan la filayo inuu ku soo biiro shirkadda inuu leeyahay khibrad iyo aqoon la xiriirta booska ka bannaan shirkadda ama hay-adda. sidoo kale haddii ay jirto shaqooyin hore uu u soo qabtay haddii ay ka saacidi karto booskan uu danaynayo hadda inuu buuxiyo ma jirtaa. 3 waa core job element oo ah in la fiiriyo haddii musharaxan uu leeyahay aqoon khibrad rabitaan
iyo dhiirigelin ku filan si uu shaqada u qabto ka bannaan shirkaddan insha allahu sharaxaadaha soo socda ayaan kaga hadli doonaa noocyada kala duwan ee loo kala saaro interviewga ama types of a job interview xog dheeraada oo ku saabsan recruitment and selection fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay mahadsanidin waa inoo markala dira bidmo